السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. waxaan soo gaarnay oo ilaahay ina soo nooleeyey maalintii labaad ee maalmaha ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu jecel yahay sanadka. waa 10ka maalin ee carafo. ilaahay baa mahad iska leh. xasuuso dardaarankii nabiga sala allahu calayhi wasalam. camal wanaagsan oo la sameeyo maalmahan ilaahay waa ka jecel yahay camal kasta oo wanaagsan ee sanadka qaybihiisa kale la sameeyey. haddaan marka ilaahay ugu dhowaanin waxa uu jecel yahay iyo maalmaha uu jecel yahay, haddaan ilaahay u dhowaanin goormee ilaahay u dhowaanaynaa? adduunyada raaxadeeda way kooban tahay, mataacuhaa qaliil, laakiin raaxada aakhiro waa khaalidiina fiiha abada. aan isku dayno inaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu dhowaano maalmahan camal kasta oo wanaagsan oan samayn karno. waalidkaaga baari u noqo, qur-aanka akhri, sadaqo la bax, khayrka faafi. alkalimatu tayiba sadaqa. hadal wanaagsan oo aad ku hadashay waa sadaqo. allahu akbar. walaalkaa oo wejigiisa aad u dhoola cadaysa waa sadaqa. khayrka midka ugu yar iyo midka ugu weyn isku day inaad la imaadid. xumaanta ka tag, xanta ka tag. sharta haddaa faafin jirta isku day inaad faafinteedii joojisid oo aad beddelkeeda khayr ku bedeshid. maalmahan dembi la sameeyo wuu ka xanuun iyo cadaab kulul yahay maalmaha kale ee sanadka dembi iyo xumaan la sameeyey. marka isku day intii aad awoodid inaad ilaahay ugu dhowaatid wuxuu jecel yahay. maalmaha ilaahay uu jecel yahayna inaad u dhowaatid isku day si aad u heshid raaxada aakhiro, meelaan lagu duqoobeynin, oo aad dhalinyaro ahaanaysid, oo aadan xanuunsanaynin, oo aad naciim abadi oo baaqi ah aad ku helaysid. lamid ma aha meel lagu gaboobayo adduunye ah, ee lagu xanuunsanayo, ee mararka qaarkiisa faqri iyo dhibaato ay ku soo gaarayso, lagana dhimanayo. isku mid maaha. marka aan u shaqaysanno maalmahan wanaagsan, aan ka dhiganno sahay, aan horumarsanno biidni illaahi tacaala. wajazaakum allahu khayran. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh.